بسم الله الرحمن الرحيم كلا وناكسن دعوة ضيالة كسو دوادا برنامجك بندق HBN برنامج كان قبيهام وحي نقصو قادنينا معلومات حساسية أو لحريرة سببتا غير قلبتكو أيقو قولي سوايين إن أي جبيان الروشك يدو صدح دي سنة إلا صوت دافي دقالك كسعودة ودك يوكرين غير قلبتكو أي اسكو ديان عدود عيدا يدقالي إن يكو جبيان الروشك لكن waxa leeyahay waxaasi oo idil ruushku waa uu ka soo gudbay waxaana u muuqataa wixii tacab ahaa ee halkaasi la geliyay inay noqdeen tacab qasaare ha noqoto hubkii faraha badana ee Ukraine la siiyay dhaqaalihii la siiyay isku dayga dhanka siyaasadda diblomaasiyadda go'doominta iyo weliba cunaqabataynta dhanka ruushku iyagu waxay u dhigayaanba waxaas oo itaala intay bixiyeen reer galbeedka Mareykankuna hormuud u ahaa iyo reer Yurub iyagu inay ku jiraan waxa ay ugu yeereen hawlgal kooban oo gaar ah macnaha inaysan dagaalkan murqihiisa oo dhanba ruushka uusan ku bixin xag dhaqaale iyo xag ciidan walow reer galbeedku ay lahaayeen ruushka kuma guulaysan karo dagaalkan mana sii wadi karo laakiin maxay yihiin lixda qodob ee la oran karo ruushka waa lagu guulaysan waayay sababtaas ayaan barnaamijka ku faahfaahin doonaa iyo xog xasaasi oo arrimahaasi la xiriirta internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah المركز الفرقان هويجي تعلينتي دينتي النهضنكا أو هب أونلاين لغو دغو ayuu haybinteedii ka haqabtirayaa almarkaz alfurqaan almarkaz alfurqaan waxaad ugu imaanaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka oo hab online ah aad ku dhiganaysid isla markaana ay diyaar kuugu yihiin macallimiin ku xeel dheer xifdisiinta ilmaha ee quraanka kariimka waa adiga oo gurigaaga jooga ilmaha iyo adiguba ku barta quraanka kariimka habka casriga ah ee online-ka waa fursad qaali ah oo marle araga oo gurigaaga kuugu timid fadlan ubadkaaga u door macallin wanaagsan oo takhasuskiisu yahay quraanka kariimka iyo barashada shariicada islaamka sidoo kale waxaad ka helaysaa barashada axaadiista tafsiirka luqadda carabiga iyo ducooyinka almarkas alfurqaan kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda maxamed maxamuud cadde oo macluumaadkan oo idil soo akhriya ayaa qadka ku jira maxamed hadda waxa la islahaa 2022 dagaalku markuu dhacay isla sanad gudihiis ruushka waa la buuran doonaa xag dhaqaale iyo xag ciidan laakiin iminka sida muuqata asagii waa lagu baryayaa miiska wada hadalka inuu yimaado bal hadda xogtan soo baxday inoo bilow saacadihii ugu horreysay bishii February 2022 bishaasi markay ahayd 24 ayaa qiiq waxaa laga arkay magaalada caasimadda Kiev ruushka taangiyadiisa ayaa ku soo durkay meel walba oo kamid ah dhulka Ukraine waxaa cadayd markaasi in caalamka uu arkayo ma aha dagaal goboleed waxay ahayd in ay furmeen ama inuu furmay bog cusub siyaasadda caalamka waxa ku bilowday dagaal ay ruushku ku soo qaadeen oo aad saf ballaaran ugu socda dalka Ukraine iyo sidii looga hortagayay wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa nidaamkii caalamka ee jiray ayaa aas-aaskiisa la isku qabsaday waxaana bilowday colaad iyo xiiso gobolka Europe ee Asia ka bilowday waxaana la islahaa dagaalku wuxuu noqonayaa mid xadidan oo la isku haysto deegaano kooban hase ahaatee xoog ku qabsashadii ruushka ee Ukraine ayaa waxa ay keentay in ay isku hor yimaadaan aragtiyo kala duwan ee caalamka ee wadamo badan qabaan iyo cil taariikheed ee la isu qabay colaadaasi ayaa waxa ay awoodihii caalamka ku qasabtay inay dib u qiimeeyaan qolo walba mowqifka ay haysato xulafada NATO ha noqoto iyo wadamada qaar waxa ay mudnaanta istiraatiijiyeed siinayaan
marka la fiiriyo siyaasadda caalamka ilaa ay wixii ka dambeeyey markii uu burburay itixaadka sovietiga. dhanka ruushka marka la fiiriyo dagaalkani waxa uu u qaabaysnaa inuu muhiim ahaa in la saxo khalad siyaasadeed ee hore loo geystay wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa ee itixaadka sovietiga uu ku burburay. ruushkana wuxuu isku dayey inuu dib u qabsado saameyntii uu ku lahaa bariga yurub, dibna u soo ceshto waxa uu u arkayey xuquuqdiisa istiraatiijiyadeed iyo deegaanadii uu isaga difaacayey wadamada yurub inay kusoo durkaan. Ukraine dhinaca kale waxay arkaysay mustaqbalkeeda inuu ku xiriirsan yahay wadamada reer galbeedka, waxaana ka go'nayd in ay ka fakato gacan ku haynta iyo galgalka siyaasadeed oo ruushku ku leeyahay. waxay rabtay inay xorriyaddeeda iyo madax banaanideeda muujiso, qaybna ka noqoto wadamada yurub. hase ahaatee inta waxaasoo dhan dhacayaan ayaa gaar ahaan wadanka Maraykanka iyo wadamada reer galbeedka iyo yurub waxa ay la kulmeen xaajad aad iyo aad u miriqsan oo culayskeeda leh. sidee ay wax uga qaban karaan kuna taageeri karaan Ukraine iyagoo oo aanan dhalinin dagaal weyn oo faraha ka baxa oo wadan cadow ah oo hub nuclear haysta aan la gelin. waa su'aal meesha ku jirta oo muhiim ah. maxay marka aaminsanaayeen reer galbeedku ka hor intii uusan dagaalku si rasmi ah u bilaaban ama uusan gaarin heerka hadda uu joogo? wadamada reer galbeedka ayaa waxay aaminsanaayeen haddii ay isugu daraan wadanka ruushka cunaqabatayn xagga dhaqaalaha oo aad u xun iyo in ay Ukraine ku taageeraan agab military iyadoo wadamada reer galbeedka ay gaar ahaan ururka NATO awood mudaysan cadaadis lagu saaro dowladda ruushka inay dib u gurasho samayso, ayaa waxaas oo dhan wax ka soo naascadaan waaye. in ka badan 3 sannadood ayuu hadda dagaalkani socdaa. wadadii iyo wadiiqadii ay reer galbeedku qaadeen natiijadii ay filayeen kama imaan. wadamo badan oo reer galbeedka ah wixii ay u hanqaltaagayeen waa socon weyde. ruushka ayaa weli waxa uu xoog ku haystaa dhul lagu qiyaasay ilaa ay 20% dhulka rasmiga ah ee Ukraine loo aqoonsanaa. heshiis diblomaasiyadeed in la gaarana weli caqabado waaweyn ayaa ka jira. in lagu guul daraystay in guul laga soo hooyay ruushka ayaa waxa ka dhalatay in sababo badan ay horseeday in ruushka laga adkaan waayo marka laga gudbo dagaalka dhiig uu ku daadanayo. sababahaas ayaa waxaa ka mid ah juqraafi ahaan, istiraatiiji ahaan ruushka meesha ku yaalo. waxaa iyadana ka mid ah in ruushka uu hub nuclear leeyahay. waxaa iyadana aan meesha ka maqnayn reer galbeedka oo siyaasadahooda ay kala daadsan yihiin. waxaana midda saddexaad ay tahay in ruushka awood u yeeshay in uu gunta dhiisha isaga dhigay dhaqaale ahaan cunaqabatayntii lagu soo rogay, military ahaanna la loodin waaye. waa garta haddaynu markaa qodob u dul istaagno maxaa loo oran karaa ruushka waa lagu guulaysan waaye dagaalka si kastoo la iskugu dayay? bal qodobka koowaad inoo faahfaahay maxamed. dagaalkan ayaa waxaa loo arkayey in uu ku bilowday xoog ku socdo, xawli ku socda. colaadda ayaa tartiib waxay isugu bedeshay dhaqsadiiba dagaal la isku riiqday. dagaalka noocaas oo kale ah guusha waxay ku xirnaanaysaa ma aha keliya awood hub aad leedahay keliya, waxay kaloo ku xirnaanaysaa adkaysigaaga militarigaaga iyo siyaasad ahaan sida ugu adkaysatay dagaalka. ruushka ayaa waxa uu si cad u muujiyey inuu awood u leeyahay in howlgal military oo dheer in uu geli karo. waxaana uu kordhiyey miisaaniyadiisa difaaca oo 6% ka dhigay marka la barbar dhigo wax soo saarka 2024. dagaalka ka hor waxay ahayd 3.9 miisaaniyadda uu difaaciisa ku bixiyo. madaxweynaha wadanka ruushka Vladimir Putin
ayaa waxa uu ballaariyey awooddii militariga oo wuxuu ku daray ciidan aad u fara badan ilaa iyo 180,000 tanna waxay tilmaamaysaa in ruushku uu awood u leeyahay inuu isu diyaariyey dagaal muddo dheer socon kara. warshadihii ruushka ee qalabka militariga soo saarayey ayaa wax soo saarkooda si caadi u wada. qaybta difaaca ee ruushka ayaa weli waxa ay tahay mid si weyn u shaqaynaysa, awoodna u leh qalabka laga burburiyo in si dhaqsaa loo dayactiro ama loo kabo ama loo bedelaba. marka Ukraine la barbar dhigo dadaalka Ukraine ee isku difaacaysa ayaa waxa uu noqday mid inta badan ku tiirsan agab gaboobay oo ay reer galbeedku soo daabulayaan. qalabkaasi intiisa badan ayaa waxaa soo gudbiyey Mareykanka iyo wadamada xulafada ah ee reer Yurub, taasoo ka dhigtay howlgalka mid aad u nugul yahay hubkaasi. qaabkii siyaasadeed ee lagu taageeray Ukraine ayaa tartiib tartiib u sii guray. wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub ayaa hadda waxay laba gebigeed caleynayaan in ay dardar geliyaan wax soo saarkooda xagga hubka, laakiin marnaba lama dabal qaadi karaan, lama jaan qaadi karaan hubka Ukraine ku qasaaraya inay si dhaqsa u bedelaan. rasaasta xataa hubka artilleriga ayaa gabaabsi noqday. dowladda Mareykanka ayaa hub waxay aragtay keedkeedii markuu sii dhammaanayo inay ka soo qaadato rasaas Kuuriyada Koonfureed dalalka carabta ka soo iibsato. waxay xataa geysay hubkii mamnuuc ahaa ee firdhayey oo xataa wadamada NATO ayaynan la dhacsanayn in hubkaasi dagaal lagu isticmaalo. arrintaas oo dhan ayaa waxa ay noqotay in ay daciifnimadii dhinaca reer galbeedka ama dulduleeladooda in si weyn u soo baxdo. waa gartay. arrimaha kale la isweydiinaya waxaa weeyaan ruushka waa wadan aad u ballaaran baaxad ahaan marka la fiirsho dhulkiisa, waxaana xuduud uu leeyahay 16 wadan oo badankoodu ah wadamo aad uga soo horjeeda siyaasadda reer galbeedka. Kuuriyada Waqooyi ay ka mid tahay. taama la oran karaa way caawisay ruushka. arrintaa weeye ruushku waxa uu leeyahay dhul aad iyo aad u ballaaran. waxa weeye 3 qaaradood ayaa uu dhulkiisa ku xiran yahay. waxaa dhulkiisa lagu qiyaasaa 17 milyan oo kilomitir oo laba jibaaran. arrintaas ayaa u suuragelinaysa in wadanka ruushka uu istiraatiiji ahaan uu leeyahay fursado badan. waxa uu xuduud la wadaagaa 16 dal oo ay ku jiraan wadamo aanan xiriir la lahayn reer galbeedka sida Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. wadamadan dariska ah ayaa ayaga laftirkooda kaalmo iyo gacan iyo garab u ah wadanka ruushka marka ay timaado xagga dhaqaalaha, marka ay timaado xagga ganacsiga, marka ay timaado xagga taageerada niyadda. waxayna fududaysay saaxiibtinimada iyo dariska wadamkaas leeyahay ganacsiga iyo in ay culays weyn oo siyaasadeed ku noqoto reer galbeedka. cadaadiskii siyaasadeed ee reer galbeedka ay saarayeen ruushkana uu noqday wax aanan saameyn weyn lahayn. deegaanka istiraatiijiyadeed ee ruushka ku yaalo ayaa waxay ka dhigaysaa inay dhib badan tahay in la go'doomiyo cunaqabataynna lagu xanibo. dhowaanshaha uu dhow yahay bartamaha Asia iyo badda Pacifiga ayaa ayagana door ku leh. sidoo kale in uu leeyahay goobo fara badan oo wadiiqooyin ah oo uu ku gudbin karayo wax alaali wixii soo saaro, wixii loo wadan loo geyn karaa, taasoo u ogolaanaysa xukuumadda ruushka inay u adkaysato culayska kaga imaanaya dibadda. saameyntoodana aad ayay u yartahay marka la fiiriyo dalalka ku xareeraysan. juqraafi ahaan qotada iyo kaabayaasha uu leeyahay wadanka ruushka ayaa ka badbaadaya colaad kasta oo reer galbeedka isku dayaan. wadamada reer galbeedka waxay ka baaqsadeen inay duqeeyaan wadanka ruushka gudihiisa. waxay ka baqayaan in falcelinta ruushka ay noqoto hub nukliyaar ah, iyadoo natiijada
ka dhalatay arrintaas ay tahay wax soo saarka militariga ruushka, warshadihiisa, kaabayaashiisa, wadooyinkiisa, tareemadiisa, goobaha ay wax u soo maraan in ay yihiin intooda badan lama taabtaan. dagaalka iyo amnigiisana ay labadaba isku xiran yihiin marka la fiiriyo waddankan inuu yahay waddan aad u ballaaran. waa garta waaya waxaa soo hadal qaaday arrinta nuclearka inuu ruushku haysto nuclear qayb ma ka tahay in lagu dhici waayey in lagu degdego sidaasna lagu guulaysan waayey? arrimaha ugu waaweyn ee ruushka aan loogu dhici karayn cid ku dhacdana aynan uunka ku nooleyn waxaa ka mid a baa leeyahay marka colaadan la fiiriyo khatarta ka imaan karta haddii dagaalkan la damco in ruushka gudihiisa la geeyo ka imaan karta nuclear. ruushka ayaa waxa uu leeyahay kaydka ugu ballaaran ee nuclearka adduunka. waddan u dhigma ma jiro markay nuclear timaado. ma aha keliya nuclear inuu haysto, nuclearka sidii loo gudbinayo badda ha noqoto, beri ha noqoto, gujis ha noqoto, diyaarada ha noqoto istaraatiijig ah, meeshuu rabo ayuu adduunka duqeyn karaa. madaxweyne putinna kama baaqsanin inuu awooddaas iyo kaarkaas isticmaalo. xusuusiye caalamkana in ay jiraan kayd nucleara oo waddan walba dhalaalin kara haddii ay danaha ruushka ka hor yimaadaan. arrintan ayaa saameyn naxdin leh ku noqotay go'aamada reer galbeedka ciddii qaadan lahayd. waxaana laga baqay haddii ruushka la dandaansado oo lagu qasbo inuu nuclear isticmaalo inay arrintaasi ba iyo hoog dhalayso. nato ayaa xataa diiday inay ciidankeeda geyso Ukraine gudihiisa ama ku xoojiso ama ay ku soo rogto ruushka ama Ukraine meel aan duulimaadka ka caagan oo diyaaradaha ruushka ay mamnuuc ka yihiin sababtoo ah ruushka awooddiisa lama yaraysan karo. xataa waxaa la leeyahay dowladda Maraykanku hubkii ay Ukraine geysay ee gantaalada meesha fog ahaa oo Atmax ay ka mid ahaayeen xanibaad ayay ku soo rogtaa waryaha ruushka dhulkiisa ku isticmaali. hubkan waa ku sii laakiin ruushka gudihiisa ku isticmaali. maxaa laga baqayay cawaaqibka ka dhalan kara haddii dhulkaas ruushka gudihiisa lagu isticmaalo. gaabsi iyo isxakameyn istiraatiijiyadeed ayaa reer galbeedka maskaxdooda kusoo dhacday. waxaana lagu doodayaa inay taasi tahay waxa keliya maangalka ah. waxa ayna damaanad u siisa ruushka in aynan jirin cid ku dhacda caalamka guudkiisa inay ruushka u hanjabto. Ukraine waxaas iyo wax lamida ma laha. duqeynta ruushka ayaa waxay burburisay dhammaan kaabayaashii iyo Ukraine lahayd. ha noqoto goobihii korontada laga dhalinayay, ha noqoto warshadihii, ha noqoto maqaasiinadii, ha noqoto dekadihii, ha noqoto magaalooyinkii. Ukraine ayaa waxa ay tahay mid marti u ah duqeynta waddanka ruushka iyo inuu asaga iyo ilaahay u naxariistaan mooyaane. Ukraine wax u dhigma awood sidaas oo kale ay ku argudato ma haysato, reer galbeedkana kuma caawin karaan. taas ayaa waxay dhigtay in Ukraine ay difaac ku jirto tan iyo markii uu dagaalka bilowday. difaacaasna hadda waxaad moodaa in uu bariiqsaday. waa garta arrinta cunaqabataynta waxay ahayd mid ka mid ah imkaaniyaadkii la rabay ruushka in jilbaha dhulka loogu dhigo inay saameyn yeelan weyday qayma ka noqon kartaa in laga guulaysan. xisaabaadka khaldame waxaa ka mid ah cunaqabataynta in hub ahaan loo isticmaalo dhaqaalaha, bangiyada iyo handadaad joogtaa marka ay timaado waddanka Maraykanka iyo reer galbeedka. markii cunaqabataynta waddanka ruushka lagu soo rogay waxay ahayd cunaqabatayn waalan oo aanan ayadoo kale taariikhda la arkin. nacaybka, xaasidnimada waxaa la rabay ruushka in jilbaha loo dhigo. qaar badan ayaa waxay saadalinayeen oo reer galbeed ka mid ah in ruushka dhaqaalihiisa uu dumi doono. hase ahaatee 2024 waxaa la garwaaqsaday ruushka dhaqaalihiisa inuu dumaha joogtee in uu horumar weyn sameeyey 4.1% inuu kordhay. xataa iyadoo sicir barar jiro, iyadoo ay jiraan dagaal uu ku jiro waddanka,
ayaa weli horumar weyn uu ku tallaabsaday marka la barbar dhigo waddamadii reer galbeedka. ruushka ayaa isla markiiba la qabsaday xaaladaha lagu soo rogay, wuxuuna abuuray ganacsi ka baaxad weyn, kana qoto dheer, kana saameyn weyn ganacsigii uu hore ola lahaa waddamada reer galbeedka. waxa uu suuqyadiisii reer galbeedka u wareejiyey Asia, gaar ahaan waddanka Shiinaha, waddamada Shiinaha iyo Hindiya, oo uu saliidiisa ka gado, gaaskiisa ka gado, birihiisa ka gado. waxa uu isticmaalaa maraakiib taangi ah oo xamuulka shidaalka qaada oo aan cidna aqoonin, oo aan sumad lahayn. waxa uu la yimid nidaam dhaqaale oo ka madax bannaan nidaamkii reer galbeedka. cunaqabatayntii loogu talagalay in lagu wiiqo dhaqaalaha waddanka ruushka ayaa ku rogmatay dalalkii cunaqabataynta kusoo rogay. waddamada Yurub waxaa ku dhacay gaaskii raqiiska ahaa, saliiddii raqiiska ayaa meesha ka baxday, shirkadahoodii ayaa xirmaday iyo warshadahoodii. waxaa culays weyn uu ku yimid maciishadii waddamadooda, sicir barar iyo noloshii oo adkaata. cunaqabatayntii ee reer galbeedka soo rogeyn saameyn weyn waa yeelan weyse, inkastoo cunaqabatayntaas loogu talagalay muddada dheer inay caqabad ku noqoto waddanka ruushka, laakiin hadda waxaa caqabad ha joogtee ayagiibaa hadda dhibaatadii ay xerada usoo gashay. inkastoo qaababkii uu samaystay ee xagga dhaqaalaha ruushka u ogolaadeen inuu iska difaaco cunaqabataynta reer galbeedka, haddana ruushka ayaa dhaqaalihiisa aad iyo aad ugu kordhay. waxaadna moodaa awood ayuu u yeeshay in wax allaale iyo wixii lagu soo rogo uu ka soo kabto, waxayna ugu dambeyn horseeday in ruushka hadda uu yahay ninka miiska fadhiya oo reer galbeedka iskaashigii ay yeesheen iyo wax walba ay yeesheen iyo isu gaashaanbooriga isu gaashaanboorteysteen ay saameyn weyday. waxaad moodaa in ay daciif noqotay dagaalkii dhaqaale oo ay reer galbeedku ruushka la galeen. waayahay maxamed, waxaa la ogyahay xiisada caalamka ka jira in sidoo kale saameyn ay ku yeelan karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, arrintan la xiriirta Taiwan, saameynta Shiinaha. arrimahaas ma la oran karaa meeshii ruushka uusan colaado badan adduunka ka socdo lug uusan ku lahayn, iyagu laakiin ay kala firirsan yihiin meelo badan lugaha igula jirta, taa inay keeni karto saameynta in ruushka laga guulaysan waayey? waxyaabaha Maraykanka uu lugta ku leeyahay maaha kaliya Ukraine. waxaa sidoo kale la sheegaa in awoodda ballaaratay xagga wax soo saarka, xagga ganacsiga, xagga warshadaha ee Shiinaha in isha lagu hayo, iyo iyadoo loo arkayo Taiwan inay Maraykanka ku tahay walwal weyn oo xagga istiraatiijiyada ah. xubnaha kale ee NATO xaaladaasi ma haysato. wadamo waxaa jira Maraykanka uu heshiis la galay sida Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, laakiin Ukraine ma laha heshiis difaac oo Maraykanka la dhexeeya. natiijadan waxay noqotay Maraykanka taageeradiisa in ay tahay oo keliya mid uu asaga isu xilsaaray ee ma aha mid mabaadi ah. sidaa daraaddeedna siyaasadaas Maraykanka waxaa laga yaabaa inay ku yimaadaan isbedel siyaasadeed iyo dabaylaha isbedelaya, waana ku yimaadeen. gudaha marka la fiiriyo Maraykanka, dagaalka uu u hayay taageerada ee Ukraine waxaad moodaa inay meesha kasii baxayso. Maraykanka keliya maana, xataa Yurub niyad uma hayaan ay sii taageeraan Ukraine. wadamada sida Hungary, Slovakia iyo xataa Jarmalka ayaa shacabkii waxay kasoo horjeestaan siyaasadda dagaalka, oo xisbiye waxaa xukunka soo galay wadaniyiin ah oo su-aal ka keenaya qiimaha taageerada Ukraine ay dhaqaalahooda ku yeelanayso. siyaasaddii reer galbeedka dhexdooda ayaa khilaaf soo dhex galay, taana waxaa loo tarjuntay inay ka cagajiidayaan marka la yimaado masraxyada caalamiga ah. waxayna xoojinaysaa aragtidii reer galbeedka ay qabeen ee adduunka in isbedel istiraatiiji uu ku yimid.
taa haddii la barbardhigo Putin ayaa weli waxa uu adkaysi u yeeshay in dagaalkii xagga dhaqaalaha lagu soo qaaday iyo kii xagga militariga lagu soo qaaday ee la rabay in lagu bulburiyo in aynan labadaba suuro galin. waxaadna moodaa in uu weli u taagan yahay inaan wax khasaare ah soo gaarin, dagaalkana uu muddo dheer kusii jiri karo. waa garta ugu dambeyntii marka maxaa loola jeedaa marka la leeyahay ruushka dagaalkan uma arko dagaal caadi oo kale, waana ka duwan yahay dagaalada kale, maxaa taa loo fasirayaa? hogaanka ruushka Ukraine uma arkaan dagaal wadan daris ay kula jiraan. Ukraine waxa ay qayb ka tahay taariikhda wadanka ruushka iyo dhaqanka wadanka ruushka. marka dhinacaas laga fiiriyo ruushka, dadka istiraatiijiyadiisa dejiya ee wadaniyiinta ah, in Ukraine looga adkaado ama ay lumiyaan waxay u dhigan tahay ruushka in uu lumiyey laf dhabar ama wadnaha wadankiisa. xusuustii hore ee Ukraine dhulkeeda ay xoog ku soo galeen ciidamadii Napoleon iyo ciidamadii Hitler ayaa dihniga dadka ruushka madaxooda ku samaysan iyo qulubtooda oo istiraatiiji ahaan ay xusuusan yihiin. taariikhdaasi ayaa waxay ka dhigaysaa ruushka inay aaminaan Ukraine waa in ay ahaataa qayb ka mid ah ruushka, ahaataana deegaan ka caagan galgal reer galbeed qiimo kastay ku fadhiisato. si kastoo ay tahay, aaminaadaas ruushka ay aaminsan yihiin shacabka ruushka iyo shacabka Ukraine inay hal shacab yihiin, ma aha keliya mid saameynaysa siyaasadda oo keliya, waxay kaloo saameynaysaa damiirka dadka. marka la fiiriyo caalamka, waxaa laga yaabaa in ruushka inuu tanaasulaad arrintan ka sameeyo ay dhib badan tahay. waxaa lala yaaban yahay adkaysiga ruushka iyo kartida ruushka marka la fiiriyo dhimashada iyo dhaawaca iyo dhaqaalaha oga baxay dagaalkan iyo weli sida ay meedaanka u taagan yihiin. laakiin reer galbeedku awood uma yeelan inay ruushka si toos uga adkaadaan marka ay timaado dagaalkan Ukraine. waxaadna moodaa sababo badan inay keenayaan juqraafi ahaan, adkaysigooda militariga, hubka nuclearka iyo dhaqaalihii ruushka oo la qabsaday xaaladda kana soo qabtay, iyo khilaafka Yurub dhexdeeda ka dhex jira. dagaalka ayaa hadda waxa u noqday mid jiitamaya. hase ahaatee awoodihii reer galbeedka adkaysi uma laha marka la fiiriyo caqabadaha badan ee lasoo gudboonaaday iyo siday u yareysteen siyaasaddii ruushka iyo awooddii ay isbidayeen, mid dhaqaale ha noqoto ama mid militari ha noqoto, oo waxba samayn weyday, iyo colaadii oo hadda gashay sanadkii 4. waxaana cad in go-aanka rasmiga ee ugu dambeynta ah uu yahay mid aada u fog ruushkana ku xiran. maaha in daciifnimada reer galbeedka keliya la arkay, waxaa iyadana ah wax lala yaabo awood nuclear oo ballaaran cadow haysta reer galbeedka ma ka hortegi karaan. sababtaas ayaa keentay in istiraatiijiyada ay rabeen inay dib wax u qaabeeyaan in ay shaqayn weyday. hadda waxaa marti loo yahay ruushka iyo wixii uu arrimahan ku gabagabeeyo. waayahay, waynu arki doonaa meesha ay saldhigato. maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashoona ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. daawada si aad inoola socoto oona hesho wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waana mahadsantihiin mar kale. nabadgeli. American International High School iyo faraca Nairobi. haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta ka maal. American International High School. American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay, isla markaana casharrada
lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka. haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada, American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare. waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka. iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda.